tani waxay sheeko cajiib ah oo dhex martay goleeyaha Juventus Ilika Buffon iyo daaficiisa Emiliano Paolo Maldini markay isku arkeen finalkii Champions League 2003. maxaa dhex maray xidigahan ka soo wada jeeda xulka Talyaaniga markay isku arkeen iyagoo kala matalaya kooxda Juventus AC Milan finalkii Champions League. waxay ahayd finalkii UEFA Champions League 2003 markii aan garoonka galnay. waxaan aad ugu dhawaa Paolo Maldini maadaama isagu ahaa kabtanka kooxda Milan xilligaa. sida uu sheegay Buffon wuxuu yiri haye Paolo, aad baan ugu faraxsanahay inaan ku arko. waa maalin qurux badan maanta. taageerayaasha halkan Manchester jooga waa kuwa cajiib ah. wuxuu yiri Buffon, waxaa intaa kasii qurux badan waa in qof walba inaga mid ah inuu matalayo dal dhan. markii aan ku dhawaanay koobkii waan eegay oo waxaan ku yiri taabo Paolo, kaalay taabo. Talyaaniga waxaa jirta sheeko caan ah oo la aaminsan yahay in qofkii taabto koobka ka hor ciyaarta uu waayayo koobka. wuxuu ugu jawaabay maya, laakiin waxaan taaban doonaa dhamaadka. waxaan ku yiri waxaan rajeynayaa inuu i doorto. wuxuu ku jawaabay maya, isaga ayaa i dooran doona. waxaana yiri waxaad ku arki doontaa gacmahayga. ugu dambeyn shaygii la habaaray weligiis ima dooran. waan fariistay oo waan ooyey. waa siduu yiri Buffon. waxay ahayd markii ugu horreysay ee ilmo iga imaado si kadis ah. Alexis Del Piero ayaa ii yimid oo igu yiri Gigi, ha ooyin, waxaa tahay nimankana ma ooyaan. kadib Paolo ayaa ii yimid. farxad ayaan si cad uga muuqatay wejigiisa. wuxuu yiri wuu ku doortay, waana u qalantaa Paolo, waana ku hambalyeynaya guusha saaxiibkayga oo yiri Buffon. Gigi wuu i doortay, waa siduu ku jawaabay Maldini, laakiin adigu waad u qalantaa. waan ogahay waxaad dareemayso, taasi waa kubadda cagta. mararka qaarkood way naga qoslaysaa, mararka qaarkood way naga oysiisaa, laakiin mustaqbalku weli wuu ku sugayaa. Buffon, ha niyad jabin. xasuusnow, niyad jab kasta uu jira wax qurux badan ayaa ka dambeeya. awood baan iska baaray oo waxaan aaday qolka labiska. murugo ayaa meel walba ka jirtay. waxaan go'aansaday inaan adkaysto, aan isku dayo inaan dadka niyad u dhiso. laakiin waxaan arkay Del Piero oo dhabarka qolka ku weynaya sidii ilmo yar oo kale. waxaan ku yiri ma adiga ayaa oonaya Alexis? waxaan u maleynayay in kaliya carruurta oydo, sababta weligii ma arag ciyaaryahan jecel Juventus siduu isagu jecel yahay. 3 sano kadib qadarkii uu ina keenay finaalkii koobka adduunka 2006 Berlin. ciyaartan waxay gaareen rigoryaal. xilligaa waxaan xasuustaa finaalkii 2003. waxaan kor u eegay cirka. waxaan yidhi hadda maxaa dhacaya? waxaan rajeynayaa in qadarku uu i doorto markan. habeenkaas taleefankaygu ma eegin. waxaan u dabaaldegayay horyaalka adduunka ilaa waqti dambe. markii aan qolkayga ku noqday waan qaatay taleefankayga. waxaan ka helay fariin oranaysa saaxiibkaygii Buffon, waxaad ahaydeen niman dhab ah, waxaad ka farxiseen waddan dhan. maanta aad baan u faraxsanahay aniga iyo sidoo kale adiguba. waxaad u qalantaa inaad noqoto horyaalka adduunka. xasuusnow saaxiibkayga, niyad jab kastoo jira wax qurux badan ayaa ka dambeeya. fariintaas waxay ka timid halyeyga Paolo Maldini, Gigi Buffon, halyeyda dhabta ah oo keliya. sheekada ayaa dhex martay ciyaartoydii hore xulka qaranka Talyaaniga. Buffon markii uu waayay Champions League 2003 waad u niyad jabay. ayuu markale ku guuleystay 2006 koobka adduunka, taa oo ilowsiisay niyad jabkii uu ka qaaday koobka dhagaweynaha ilaa uu ka fariistay xidigaasi muusan helin koobka inuu ku guuleysto ama nasiib uma yeelan.